يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان وقضيتم الساعات في آياته ترتيلكم نبض بكل مكان همم تفاخر أمتي بسموها وعلوها عن لوثة الأدران لا نوم يغريكم ولا لهو ولا لعب مع الأنداد والأقران بل كان يجذبكم كتاب محكم ترجون ختما قبل فوت أواني يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله منها وما يقربنا إليها من قول أو عمل marka ugu horeysa walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaynu ku mahadinaynaa caawo ay taariikhdu tahay 19 bisha shawaal 1440 oo ku beegan 22 bisha lixaad 2019 masaajidka riyaad ee magaalada kismaayo xaafadda calaley inuu ka bilaabi doono biidnillaahi tabaaraka wa tacaala caawa tafsiirkii qur-aanka kariimka marka ugu horeysa allah tabaaraka wa tacaala allah awooda badan ee waxa weeyaan xeeladeenna iyo quwadeenna toona ayna waxba ku dhacsan karaynin allah waxaan weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala inuu alle tabaaraka wa tacaala noo fududeeyo oo sawaabka iyo toosnaanta alle uu nawaafajiyo carabkeenna ilaahay tabaaraka wa tacaala uu dhowro ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka yeelo cashar naafica oo qur-aanku waa naafice casharkaan gudbinayno ilaahay tabaaraka wa tacaala ummadda dhegaysanaysiiyo ardaydaba in alle tabaaraka wa tacaala uu ku wada anfaco dhammaantood rag iyo dumarba walaalayaal markaa intaa aan ka soo gudubno waxa aynu insha allahu tacaala rabnaa inaynu beeno waa qur-aankii kariimka ah tafsiirkiisa qur-aanka kariimka tafsiirkiisuna waxaad dareemi karaysaan inuu yahay wax bini aadan ay bartaan ama qof muslima uu barto yacni waxa ugu qiimaha badan inay tahay waxyaabaha keenayaana qofka mu'minkaa wuu fahmi karayaa sababtaa waxa weeyaan kitaabkii ilaahay tabaaraka wa tacaala ummaddan u soo dejiyey ee uu manhajka uga dhigay ee alle tabaaraka wa tacaala adduun iyo aakhiro wax kastoo wanaagooda uu ku jira uu ku tilmaamay
وحوال بودب كود الدنيا آخرة بأيكو دباتونيين أو كشاغي أمده إنه ريه وحي كبا بآني وحي كن معيسين لغو شاغي أمد إنت حوني إنت وناكسين لغو بيانيي dadku waxa isku qabtaan iyo wixii dhexdooda yimaado kii ay ku kala bixilaa ilaahay ka dhigay tabaaraka wa tacaala ilaahay uu noloshooda dhabta ah geliyay kitaabkaas macnihiisa iyo barashadiisu qiimaha ay leedahay qofka mu'minka waa fahmaya waa cilmi jaamica oo hadii waxa weeyaan cilmiga kale waxa laga yaabaa inuu ka hadlo shay juz'iya وعلى غير مثلا مركع عقيدة لقاها الليو يعني كتب الاعتقاد إنه يكون رمان وكليه وحي عقيدة كتب علقة يقف كمسلم كوحا ورميسان يوحا وآمين وكليه كتب تفقه وحا لغير مركع لقاها ورميو إن كليه وحا يكون رماناي تايا فعاشا الضوامضة وحا مركع سمين يانيو هولها النوع سوكرا وانا عقيدة الشقاء كلهين هدي لغا ورميو تاريخ يسيرو ودعوينكي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا وقتي مركا يعني وحي النبي صلى الله عليه وسلم ودغالده وكجرا يا وحي هوشو ahayd ayay si gaar uga warantayo taariikh ayay markaa ka warantaa hadii xadiis la yiraahdo waa aqwaashi nabiga عليه الصلاة والسلام laakiin inta runtii waxa wada koobaya waa quraanka kariimka oo laga yaabo aayad intaaynu quraanka ku jirno inaynu meel walba hadday caqiido tahay iyo hadday fiqi tahay iyo hadday taariikh tahay iyo hadday markaa waxa weeyaan macnaha kale ee tafsiirkaba ay tahay intaba inaynu gacanta gelino oo quraanku gacanta geliyo ayaa markaa laga yaabaa ama inta badan aynu arki doonaa ikhwata al-iimaan insha Allah ta'ala markaa waqtiga aynu caaw qaadanayna wuxuu noqon doonaa xogaha horudhaca oo markaa casharka tafsiirka quraanka kariimka innagu waliba aan muqaddimada aad u badin doonin oo wax badan aynaan soo rari doonin waqtiga inagu ilaashanayna dadka cilmigooda iyo uquushooda iyo waqtigoodana ku xisaabtamayna insha Allah ta'ala markaa waxaynu taaban doonaa wax yar oo horudhaca oo markaa waxa weeye tafsiirku uu leeyahay marka ugu horeysa tafsiirka marka laga waramayo waxa la macneeyo waa quraanka kariimka quraanka kariimka ana fadliga uu leeyahay iyo waxa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo quraanku uu ku sheegay hadii la yiraahdo aynu caawiyo bariba aynu wadno waxaanu dhameyn kareyna maaha ilaahi tabaaraka wa taala manhaj nololeed oo dhameystiran oo ila qiyaam saaca ummad kasto timaada waqtigaas casri kasta iyo teknolojiya kasta ay gaaraan kitaab munaasib u ah oo waqti walba la socda oo aan kisbaayir lahayn baa Allah tabaaraka wa taala uu ka dhigay kitaabkan quraanka Allah tabaaraka wa taala wuxuu ugu talagalay ummadda aqliyadooda nooc kasta ay yihiin inuu la socdo ilaahay tabaaraka wa taala wuu fududeeyay ilaahay waa saaray tabaaraka wa taala hadaynu fadligiisa wax kamid ah aynu sheegno xadiidka imaam muslim uu soo saaray waxa uu leeyahay Allah u naxariiste xadiidka zayd bin arqam uu ka warinayo ilaahay raalliha ka noqde wuxuu yiri qaama rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam yawman fiina khatiban bimaa'in yud'a khumman wuxuu yiri zayd bin arqam maalin maalmaha kamida ayaa dhexdeeda waxa istaagay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoo noo waramaya oo noo khudbaynaya meesha aanu joogna wuxuu ahaa isha ama ceelka loo yaqaan khum waxay u dhaxaysaa Makka iyo Madiina waa meel biyo oo ceel oo markaa u dhaxaysa weeyaan marka fahamid Allah wa athna alayhi wa wa'ada wa dhakkar rasuulku alayhi salatu wa salam ilaahi buu mahadiyay ilaahina wuu amaanay saxaabadiina waa wacdiyay waxna waa xusuusiyay inta ka bacdi ayaa rasuulku wuxuu yiri amma ba'd ala ayyuha an-nas inma ana basharun yushiku an yatini rasul rabbi fa ujib wuxuu yiri dad yahow waxa la arkaa anigu bini aadan iyo bashar baan ahay
inuu ii yimaado rasuulkii rabbigay uu ii soo diray, yani waa malaku mowdkii, oo marka aan ajiibo ayaa laga yaabaa. wa innii taarikun fiikum haqalayn, waxaan dhexdiinna kaga tegayaa laba culculus, laba aad u culays badan. haddaan tago cidlo idinkaga tegi maayo, laba culays badan baan idiin dhaafayaa. awaluhumaa kitaabu llahi tabaaraka wa tacaala, labadaa culculus ee culayska badan aan dhexdiinna kaga tegayaa, ka hore waa kitaabka ilaahay, fiihi alhudaa wannuur. qur-aanka aan dhexdiinna kaga tegayo kitaabka alle ah, waxaa dhexdiisa ku sugan hanuun iyo iftiin. hanuun uu qofku markaa uu kaga hanuuno baadinimada, iyo iftiin qofku uu mugdiga kaga baxo ayaa ku sugan. fakhuduu bikitaabi اllahi tabaaraka wa tacaala wastamsakuu bihi, waar kitaabka alle qaata oo qabsada, oo kitaabka alle ku dhega baa nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam. saxaabigu wuxuu yihi faxaha calaa kitaab illah, rasuulku aad wuxuu noogu booriyey oo aad noogu guubaabiyey kitaabka ilaahay. waragaba fiihi, waanana jeclaysiiyey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam. uma qaala waahlu beyti udakirukum اllaha fii ahli beyti. qodobka waxaan kaloo idinka tegayaa oo idin dardaarmayaa ehelkayga, qoyskayga, ahlu beytka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam. nebigu sala اllahu alay slam aad buu uga dardaarmay ahlu beytkii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam in la ilaaliyo oo aada loo karaameeyo oo la waxa weeye qadariyo oo la sharfo weeyaan. waxaa kaloo riwaayad kale imaam muslim uu siyaadiyey, waxay ahayd kitaabu llahi fiihi alhudaa wannuur. kitaabka alle hanuun iyo nuur baa dhexdiisa ku sugan. man istamsaka bihi akhada bihi wa akhada bihi kana cala alhudaa waman akhtaahu dal. wuxuu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam, kitaabkaa ruuxii qabsada oo qaata waxa uu ku sugnaanayaa hanuun, qofkii gafaana wuxuu ahaanayaa ruux baadiyoobay. waxaa kaloo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ka sugnaatay inuu yidhi kitaabu llahi huwa xablu llahi, kitaabka alle waa xadhiggii ilaahay, xadhiggii ilaahay weeye. man itabacahu kana cala alhudaa, qofkii kitaabkaa raaca ee ku dhaqma ee ku noolaada ee barta, waxa uu ku sugnaanayaa hanuun ayuu ku sugnaanayaa, qof hanuunsan oo toosan buu ahaanaya. waman tarakahu kana calaa dalaalah, qofkii kitaabkaa ka taga ee kitaabkaa dayaca ee kitaabkaa waxa weeyaan dayacoo ka tago oo garabkiisa markaa dhaafa, qofkaasina baadinimo ayuu ku sugnaanayaa. waxaa kaloo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam imaamu tirmidi uu ka warinaya xadiidkaa mid ku soo dhowo macnihiisa odhanaya, wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam, inii taarikun fiikum maa in tamasaktum bihi lan tadiluu bacdii. waxaan dhexdiina uga tegayaa shay haddii aad qabsataan marna aydaan baadiyoobaynin, marna aydaan lumayn. faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa, ayayna suuratu daha ugu tegi doonaa. yacni qofka hanuunkaa qaataa adduunyadana ku dhibaato mudan maayo, oo shaqinimo iyo ayaan daro soo gaari mayso, lumina maayo. aakhirana waa sidaasoo kale oo shaqinimo iyo naarnimo iyo inkaar la kulmi maayo weeyaan. sidaasoo kale nebigu wuxuu yidhi sal اllah alay waslm markaa, inii taarikun fiikum maa in tamasaktum bihi lan tadiluu bacdii axaduhumaa acdamu min alaakhar. midkood midka kale waa ka weyahay. labada shay aan idinka tegaayo huwa kitaabu llahi xablun mamduudun min aلsamaaءi ila alard, waa xadhig ishaysta oo dheeraran dhulka ilaa iyo cirka. waa xadhigga dhul ilaa cirsaa isu haysta weeyaan. oo xadhiggaasi markaa darafna innaga hayna, darafka kalena allah tabaaraka wa tacaala yani waxa weeye xaggiisa ayuu ku sugan yahay weeyaan. markaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam aad buu uga dardaarmay kitaabka alle in la qabsado. waxaa kaloo kitaabka alle uu markaa waxa weeyaan leeyahay cizi iyo sharaf, qofkii qabsado oo bartoo ku dhaqmo ku camal falaa, ilaahay tabaaraka wa tacaala sharaf iyo cizi buu u ballan qaaday. xadiidka imaam muslim uu soo saaray min xadiidi cumar radi allahu tacaala canhu,
أيها وحريه عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أرنتني قصتني وحي أهيد عمر رضي الله تعالى عنه مركو خليفة مسلمين تاها أيوه سفر آدي من العصفان لإرادة أيوه تغي كبعدنا مقالة مدينة وحوكا تغي وحويان نافع ومولى عبد الله بن عمرها كبعد مركو كغتغي ومسؤولية دي أما برسال نمدي صاري أيها وحا كدب يمي وحويان نافع مركز عمر كوي ورياد كغتغي مقالة مدينة مقالة مدينة كسو ضافتي مركز ابن أبزة نينكي ابن أبزاها مركز ابن أبزة محوها عمر وقرواي مركز أوحي وأنها الدون ورقع الدون ماذا كمدا وذاتك الدون ماذا نين كمدا أيها هانجر مركز وأنبولا من الموالي مركز أوحي يري ومقالة دميد المدينة ما وحد كغتمت مركز وحوي نينك الدونك مركز أوحي يري النافع هو قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض نينكن aan kaga tagay ibn Abza laba tilmaamood uu leeyahay xil walba waa ninku qaadi kara xaqna u leeyahay loo dhiibo koow horta kitaabka alla waa mid yaqaano akhriyay cilmiga dhaxalka iyo faraa'idkana waa nin yaqaano caalim ku ah markaas ayaa Umar wuxuu yiri xadiidkan markaas wuxuu yiri amma inna nabiyakum sallallahu alayhi wasallam rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam qaala wuxuu yiri إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما إلهي كتاب كوحوك كريليا ومقام سرق والرفيعة وكجارسين يا شرف يا درجو ضد ومدة كاملة أي إلهي ميل سرق كجارسين يا وضد كتاب كقاطي يا كدغمية يا برانية يا قدبينية يا جعل يا وهالجمية يا كبحين يا مالك هذين مالين دبجوا كتابك الله تبارك وتعالى ويضع به آخرين إلى هنا عد كلو كد اللينية وقفك الله لقفك مركا كتاب كان خلافة الله دقا اللما نعبيستا كتاب كان هوس أدقا حكم كيس الديدة ودغن كيس التورا ووحا فري مركا قادم وايا وحرسن مركا أدن بينيا دار البوار الدنيا آخر بينه هوجو وهدو شرف لها هلك أبو جهليو أبو لهبيو رجع نوع عصاها ماشي مرين أيوم بمريا ويان كتاب كان قرآن كولا ليال نبي عليه الصلاة والسلام وحاو كشاغي قفك أخرية قرآن كم برتا ومدى الجارسين يقولون يا خير أمة ومدى مددك قفك وخير بدن وعن نبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري وصوصاري من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعايدين خير بدن قفكي قرآن كم برتا أودت كنسيبرا يعني قفك قرآن كم برتا معنيه سي اللفظ سي عمل كيسا برتا ومدنا مركاسي قارسية أيام مركا وحون غنيا قفك أمة محمد وخير خير كبضن مركا هدي عزة جرتين كتابك الله يا لقيليا هدي خيرية دي جرتين كتابك الله يا لقيليا بل نبي عليه الصلاة والسلام وعاو شاغي قفك كتابك قرآنك قلب قيسا أنا وحبك جرين وأن قرآنك وحبك قرنين إنه لمدي أقولي خرابة وكلا حديث ابن عباس وريي والنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب قفك قلب قيسا يجوف كيسا وح قرآني أنا كجرين وسيدي يقولي خرابة وأقولي ددومي وبابا أي ويان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتلمامي ولا ليال هذا وكاس وفضل القرآن ككريم كا هذين نعاون وضننا يعني مدى ما ينكرين ويان سيدا درادة حصوص بيعيد كتاب كان قرآن كا حديث كا قدام بيان كقبح يفضل قيسا وحديث كا تلمامية قفكي هل حرف أو كميدا
قرآن كريم كأخرية إن حرف كتبن درجة لغسين أيوب حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح وعن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة قفكي أخرية هالحرف أو كتابك إلهي كمد وحاوليه حسنة أجر بهلية وهالحرف مركز النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة ب10 أمثالها هلك حسنة وطملات يعني هلك أجر إلهي يكتي 6 أجر بكدقياي لا أقول ألف لام ميم حرف أرن ما ألف لام ميم أو سورة البقرة سورة البقرة كب الأوضان صدح راسي وهالحرف أرن ما يو ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف لكن ألف كوا حرف قونية طبعا أجر بوليه هي قفكي أخرية لام كنا أجر قونية طبعا أجر بوقفك كويلية يعني ميم كنا واسدا صوك لويان مركا قفكي بل سورة البقرة أخرية انت أجر بو ما انت هلية قفكي عم جزء عم آخرية انت أجر بو هلية على حرف طبعا بالله فنيا وافضل ولا لي القرآن ومركا إسكالي هويان هذا نسو قدمنو قرآن كريم تعريف كيسا مركا قرآن ليرادو وحكوي ما دام مصدر كأصل كيسو يقرأ بمعنى تلا ومركا وحويان لو جيدو يعني وحويان ومطلوب وكل آخرية ومركا ومصدره اسم مفعول بمركا كوي من بمعنى مطلوب ويان وكل آخرية وي وعكروا مركا وكوي ما دائن لو جيدو قرأ بمعنى جمع ومركا اسم فاعل ونقول بمعنى هو الذي يجمع الأخبار والأحكام وكي كل مني أما وكيل آخرية قرآن مركا المادة قرآن وأسأل كيدو قرأنا معناه ذويا أما واتلا أما وجمع لبدا سامركا لغا مصدر أيون بامدكم إذا لغا كينا قرآن كريم شرعيان مركا ليرادو وكلام الله وإلهي هذا الكيسي هذا الكي إلهي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الوسو دجي رسول كيسي محمد صلى الله عليه وسلم ان كاسو مركا وحويان المبدوء بسورة البقرة أما المبدوء بسورة الفاتحة وعكسوا برودا سورة الفاتحة المختوم بسورة الناس وعنا وكل ما سورة الناس انت أولا حيث أياه وحويا القرآن وكلامك إلهي تبارك وتعالى إنه محمد وسو دجي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة كسو برودا حق سري حق سري وسو قار سورة الناس ان قرآن كريم waxa uu soo degay ugu horeyn markuu soo degay nabiga calayhi salaatu wasalaam 17kii bisha ramadaan iyo ramadaan 17 ay marayso cimriga nabiga calayhi salaatu wasalaam 40 sano uu yahay uu joogo godkii la oran jiray qaaru xiraa ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam quraankan uu ku soo degay quraanka kariimka inuu soo degay habeenka weyna إلهي با قرآن كيسا كنت المامية تاريخ دون 17 هيدنا واسلاي مؤرخين توايو بديهين وحاجر علماء كالوسيك ليهو وقتها وشيغا إلهي تبارك وتعالى إنه قرآن كسود جوالي بهبين كابرا كيسان وسود جيي بشرى رمضان هيدنا قرآن باقصوا عروري إنه بشرى رمضان هيد وعقصوا عرور تعيد إلهي رشاء رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإلهي وحوت المام رمضان تولي تايبشي قرآن كلا سود جيي هبين كونوا لسود جينا إلهي با سورة وحوي إنا أنزل كسود جيما سورة القدر إلهي وحي إنا أنزلناه في ليلة القدر هبين كليلة القدر أيان قرآن كسود جيني مركي يقول رئيسي قرآن كانوا سود جي بشا بركي سنبي أهيد وعين هبين كاسي بركة بدن ليلة القدر اللي يقانو قرآن كريم كاهي tirada guud waxa uu ka kooban yahay 114 aayadood ayuu quraanka kariimka uu ka kooban yahay waxaana markaa waxa weeyaan 114 suuradood baan leeyahay ayuu ka kooban yahay
boqol iyo afar iyo tobankaa suuradood markay culimmadu haddana ay qaybiyeen waxay ka dhigeen 30 jus 30kii jusna waa sii kala qaybiyeenoo waxay ka dhigeen 60 xisib xisibkiiba waa sii qaybiyeenoo 4 maqra ayay ka dhigeen tirsiga aayadaha qur-aanka kariimka aqwaal fara badan baa ku jirta qur-aanku waa intee aayadood ayuu qur-aankani ka kooban yahay garanay suuradihiisu inay yihiin 114 garanay qur-aankani inuu 30 jus iyo 60 waxa weeye xisib iyo waxa weeyaan iyo xisibkiiyo 4 maqra inuu ka kooban yahay aayadaha qur-aanka kariimka culimmadu markay qaadaa dhigeen waxay yidhaahdeen qowlka ugu dhow waa 6236 aayadood ayuu markaa qur-aankani uu markaa ka kooban yahay weeyaan qur-aankan kariimka soo degitaankiisa uu soo degay waxay ahayd markii ugu horeysay magaalada maka oo nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam markii kitaabkan lagu soo dejiyey lagana soo saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligaa nebiga sala allahu calayhi wasalam uu magaalada maka joogay muddo 13 sano ah ayaa qur-aankani iska soo dabadegay 13 sano oo nebigu maka joogay sala allahu calayhi wasalam markii dambe nebigu madiine uu hijroodayna muddo 10 sano oo dambe ayaa waxyigani soconayay isugeynta markaa qur-aankani wuxuu soo degayey oo marba waqaa'icda iyo dhacdooyinka iyo xaaladaha taagan wuxuu la soo dhaadhacayay muddo 23 sano qur-aanka kariimka sida uu u yimaado waa laba qayb waxaa la yidhaahdaa ibtidaa'i qaybna waxaa la yidhahdaa sababi aayaduhu qayb ahaan waa ibtidaa'i waa qur-aanka intiisa badan waa ibtidaa'i waa qur-aanka sabab la-aanta ku soo dega waana sida qur-aanku u badan yahay sababina waa waxyaabaha dhacdooyinka ah ee markay yimaadaan sababteeda qur-aanku uu la soo degayo oo markaa waxa weeyaan uu caddaynayo qur-aanka noocaana sababi baa la yidhaahdaa kaa iska soo degana ibtidaa'i baa la yidhaahdaa qur-aanka mar waxaa loo qaybiyaa maki iyo madani waynu arki doonaa inta badan markaynu tafsiirka ku jirno waxaynu oran doonaa suuraddani waa maki waxaynu oran doonaa suuraddani waa madani suuradda makiga iyo suuradaha madaniguna qofka muslimka ee tafsiirka baranaya waa cilmi aad iyo aad ugu muhiim ah inuu kala barto marka la yidhahdo suuraddani waa maki maxay kaga duwan tahay suuradaha madaniga maxaa calaamadaheedu ay yihiin habdhaceeda iyo qaabka ay u hadashaa waa sidee aayadaheedu waa noocee waa cilmi lagu barto makiga sidaasoo kale aayadaha madaniga marka uu qofku joogayo suuraddani waa madani waxaa qofka u soo baxaysa inuu qiimeeyo maxaa madani loo jeedaa aayadaha madanigu goorma yimaadeen maxay ka hadlaan inteebay dherer la-eg yihiin sideebay u hadlaan arrimaha noocaasa iyana waa cilmi lagu barto makiga iyo madanigo laakiin innaga haddeer waxaynu leenahay qur-aanka makiga iyo madaniga waxaynu ku tilmaami doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala si guud haddaynu sheegnana maki waxaa la yidhaahdaa intii nebigu sala allahu calayhi wasalam magaalada maka uu joogay intii muddadaa wixii soo degay maki baa la yidhaahdaa qur-aankii soo degay nebiga sala allah alay slam markuu madiine tegey iyo intii safarada uu nebigu madiine uu joogay ama ha soo noqdo oo maka ha ku soo noqdo ama madiineba ha ku sugnaado ama safare kale iyo khasawaadba ha ku jire intii madiine uu nebigu sala allahu calayhi wasalam saldhigtay qur-aankii soo degayna madani baa la yidhaahdaa 13 sano waxaa jira culimmada qaarkood iyagu markaa yidhi waxaa jira qur-aan aan maki ahayn madanina ahayn oo markaa nebigu sal ama daa'if buu joogay ama markaa waxa weeye khaybar buu joogay ama markaa meelo kale ayuu joogay nebigu sala allahu alay wasalam oo tabuuk oo kale ayuu joogay xaaladaha noocaasa magacyo kale ha loo sameeyo culimmadu waxay yidhahdeen hawshaa qowlka ugu fiican waxa weeye qur-aanka in maki iyo madani loo qaybiyo 13 sane maka uu joogay hadduu doo nebigu bannaanka looga baxbaxee wixii soo degay maki baa la odhanaya 10 sane ee madiine uu joogay hadduu doono 10 jeer baa ka baxo madiina laakiin madani baa la odhanaya waana sida ugu habboon ee markaa tafsiirka qofku uu ku xakamayn karayo ardayga kelmadda tafsiir
haddaynu ku soo dhowaano macnaheeda luuqadda carabiga tafsiir waxaa la yidhaahdaa min alfasri bay ka timi wahuwa alkashfu can alkhitaab baa la yidhahdaa aw alkashfu can almuqata yani waxa weeyaan fasri marka la yidhaahdaa ama fasara can anyaabihi libaaxu markuu miciyihiisa caddeeyo oo ilkaha kala qaado ayaa loo isticmaalaa asalaana waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan fasrigu waa shaygii daboolnaa oo daaha laga qaado tafsiir marka la leeyahay yani waa shay daboolnaa oo daboolkii laga qaado oo la caddeeyo bannaanka la soo dhigay istilaax ahaan tafsiir waxaa la yidhaahdaa bayaanu macaani alqur'aani alkariim qur-aanka kariimka macnihiisa in la caddeeyo sidaas un wey qur-aanka kariimka macnihiisa oo la caddeeyo oo ummadda loo fasiro oo la fahmo oo loo bayaaniyo oo bannaanka la soo dhigo ayaa tafsiir la yidhaahdaa yani waa sida ugu fudud ee qofku macnaha tafsiir uu ku ogaan karo tafsiir waa qur-aanka macnihiisii oo qofka loo bayaaniyo oo aayaddii marka uu soo maro yaa ayuha almudathir maxaa loo jeeda yaa ayuha almudathir cama yatasaa'aluun ma macnaa cama yatasaa'aluun والسماء والطارق ما معنى الطارق للذين حصلوا الحسنى وزيادة ما هي الزيادة يعني الشيء معنيه يقولها oo daboolka qofka looga rogo yadaha oo loo cadeeyo ayaa tafsiir la yiraahdaa xukunka tafsiirka xukunkiisu waxa uu yahay waayo waxa laga yaabaa dadku inta badan qofku inuu yiraahdo anigu quraanka 2 jeer baan dhameeyay ama 3 jeer baan dhameeyay oo qofku quraanka lafdiga kaliya haduu barto laga yaabo inuu haysto waajibkiisa inuu ka dhacay haddaba xukunka quraanku waa waajibun ala kulli muslim ruux kastoo muslima inuu barto ayaa ku waajiba ruux kastoo muslimi macnaha tafsiirka iyo quraanka faatixada ugu yar waa aayad qofku haddii aanu macnaheeda garanaynin salaadiisuba ay nusqaani gelayso sababtaa salaadan markaad ilaahay hor taagan tahay ilaahay baad la hadlaysaa tabaaraka wa tacaala ilaahay baad la faqaysaa waxaad ku jirtaa fii munaajaati illaahi tabaaraka wa tacaala macnaha aad ka warramaysaba haddaadan garanaynin maxaad dee ku hadasha maxaad ilaahay weydiisatay madmadooba allah ku yaqaan hadday arrintaadu tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxau leeyahay isagoo tilmaamaya tafsiirka macnaha in la fahmo kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaati ilahay wuxuu yihi waxa waa kitaab aanu soo dejinnay nebi maxamed oo xaggaaga u soo dejinnay liyadabbaruu aayaatihi inay dadku aayadihiisa ku fakeraan oo ku waana qaataan daraaddeed qofku goormuu waana qaataa goormuu waxaan ku fakeri karaa aayadka ilaahay wuxuu leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha dadku qur-aanka miyaanay ku waana qaadanayn miyaanay wax ku fahmayn miyaanay ku cibro qaadanayn hadda qofkii haddii wixii macnihiisiiba garanayn haddii baqaro la akhriyo iyo haddii camo la akhriyo iyo haddii aayadihii cadaabta la geeyo iyo haddii jannadii lagu dul akhriyo iyo haddii ummadihii la halaagay aayaduhu looga sheekeeyo iyo haddii mucjizooyinka qur-aanka ku jira ee badaha iyo waxyaabaha ilaahay dhexdooda dhigay dhibka iyo dheefta badda yaalla waxaynu sidaynu uga macaashno doonyaha siday u maraan maraakiibta sida ilaahay ugu badbaadiyey xaaladaha dhibka inta ummad ilaahay biyo ku halaagay haddaynu marka laga warramayo oo qur-aankii la akhriyayo lafdigiisii qofku haddii aanu macnihiiba garanayn oo qisooyinkii laga sheekeeyey aanu fahamsanayn oo macnahoodiiba aanay u dhaadhacsanayn muxuu ku tadabburayaa muxuu fahmayaa muxuu garan karaa waa madmadooba allah ku yaqaan islaantii kitaabka qur-aanka intay soo qaaday xagga u rogtay oo xagga u rogtay oo baalashii baadhay oo waxba ka garan weyday oo intay meel iska dhigtay tiri madmadooba allah ku yaqaan xaruftu waa madmadoob yihiin marka dadkii inay noqdaan madmadooba allah ku yaqaan oo qur-aankii kariimka ay sidaa markaa waxa weeyaan kaga sugnaadaan waa shay ayaan darro oo weyn weyn ujeeddada
تفسير كاللقالي هاي يعني الغرض من تعلم التفسير وجدد إيا هدفك وهو بهدف بالغلية وجدد هدفك تفسير كاللقالي وامعي وهو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة إنه غفك قارو وجدوينكي والمناكسنا إنه قارو منيه وناكسنا إيادك وقيمها بدنا تاسو محيئة قرآنك مركا تفسير كيسا لبرتوحا إيمانيا التصديق بأخباره قرآنك وحاو يسوق جرا صدح شيء كو خبر ما قبلنا يعني وحي ددكي نغو ريي يوم دي نغو ريي ورالكودي وحي قرآنك كورميا وما وحي نغدن بيا ووحويان قيامه iyo waxyaabihii imanayay iyo jannadii iyo naartii iyo siraadkii ayuu quraanka waramaya quraanka waxa ku jira xukunka ummadda dhexdooda yaala saadaradeed qofku marka uu tafsiirka barto waxa uu helayaa koow inuu rumeeyo quraanka akhbaartiisa wax la leeyahay quraanka sheekaynayo inuu rumaysto waxa kale oo marka uu helayaa inuu ku intifaaco quraanka kariimka qisooyinkiisa iyo aayaadkiisa wuxuu helayaa inuu ku amal falo oo dabaqo muraadka ilaahay tabaaraka wa taala quraankan uu kaleeyahay arintaas oo marka ay ka dhalanayso inuu ilaahay ku caabudo ala basira ala ilmi wa yaqin ilaahay inuu sidaba inuu marka waxa uu caabudo weeyaan waxaan insha Allah taala tafsiirka sida ay marka salafkii ay u wadi jireen qaabkee quraanka loo fasiraya si muqaddimo yar oo kooban marna in insha Allah taala u qaadano quraanka kariimka ilaahay tabaaraka wa taala baa weyneeyay ma qofku inuu maskaxdiisa iyo ra'yigiisa kaliya la aado wax sax ma aha quraanka kariimka sidee baa loo fasiraya waa su'aal aad u muhiim ah ardayga la rabo inuu fahamsan yahay marka ugu horeysa quraanka marka la fasirayo aayad kamida ama aayadaha quraanka marka la macnaynayo qodobka ugu horeeya yufassaru alqur'aanu bilqur'aan quraanka qur'aan baa lagu fasiri aayadda in aayad kale lagu fasiro ayaa tafsiirka ugu fiican ee la maro sababtu waa maxay ilaahay baa tabaaraka wa taala quraanka soo dejiyay isaga muraadkiisa yaqaana sida tusaale ahaan إلهي وحي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلهي وحي أولياء إلهي يعني دشوا عبسي معها من مرغونيا ذاتك عبسنا ذاتك مرغونيا منا أولياء إلهي معها إلهي بأمركا فسر أولياء وايو الذين آمنوا وكانوا يتقون إلهي با تبارك وتعالى عدي وعلم ذا آيات إلهي سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق إلهي ملكو محاكو ويسي طارق وحويهي إلهي باك جواب النجم الثاقب طارق والنجم الثاقب واحد قال مركا دوسي ويا مركا قرانك إن قرانك قران لغو فسرو أي قدرك وقوه الرئية ونغنية قلت الله بعض هذه آيات دي آيات فسرت له وايو وحال الله بنيا تفسير القرآن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن كي وحال فسريا نبي عليه الصلاة والسلام هذا الكيسة أيها فسريا تسالان وحويان آيات دي الله تبارك وتعالى ويري للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يعني ددك سورة يونس بين قلت دوناي ددك وناقة سميي وهاوسقنات الحسنى وزيادة يعني الحسنى والله قرتوا جندي زيادة تنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بافصري النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة مركا قرآن كين لغو فسروا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكيس وطلابة الله رادوي قولوا كصدحات قرآن كي كريم كا وحالغو فسر يا هدي آيات فسرت اللو وايو
حديث فسرنا اللوايو كلام الصحابة لا سيما ذو العلم منهم يعني وحويان صحابة والكودة أيها المفسرية قالها صحابة علمي قبضنا إيه تفسير كآيات كوية قاني أيها الله بنيا ومركا المفسرية والكودة حديثها لبسوا قدبو وحالولا يركوني أما اللولا اللي حانيا تابعين توحي كفسرين وآد إياد تفسيرك وحويان أبرتي صحابة وقاطي ونوركي أركي دونا هدي مركا انت لغوايو وحا مركا المفسرية قرآنك كريمك كلماتك عربيك وحيابها وركا وحكي عليه كلماتك معناها شرعيك وحيابها اي كيسانيان يعني الكلمات يعني الشرعية معانيها اي كينيان ايا المفسرية اما معناها اللغويك هدي مركا وحوي اللوايو ايضو اللي ايجي يهبا habdhaca iyo qaabka ay aayadu u socoto iyadoo mar walba laga taxadarayo lana qiimeynayo haddii qur-aankii macnihiisii lugawiga ahaa tafsiirka xagga luuqadda carbeed ay u yaqaanaan ereygan iyo sida markaa sharcigu ugu soo arooray ee shareecadu u taqaana hadday iska hor yimaadaanna waxaa la horaysiinayaa macnaha sharciga loo yaqaano macnaha shareecada ayaa markaa la horaysiinayaa weeyaan إخواني إن شاء الله تعالى إنهم عاو عضو قاضي دونا قرآن كريم كتفسير كيسا ماشي نعاو كبلا بلهين ولا لها قاركود وحيحط سنة يان تفسيرك إلا قصوا بلابو حق هوسي أو جسسك هوسي لقصوا بلابو ولا لها قارنا waxay codsanayaan arkolta aan ku tala galay oo aniga markii hore aan kulay qorshaygu ahaa in xagga sare aan ka soo bilaabo laakiin walaalaha qaar kamid ah iyo culimada masaajidka oo runtii mar dhaweyd ila hadlay waxay ii sheegeen in walaaluhu ay jecel yihiin in tafsiirka qaybaha hoose laga soo bilaabo markaan weydiiyay waxaan ku yiri tira intee leeg baa warkaa laga soo sheegay ninkii walaalaha ka mid ah ii sheegay wuxuu ugu yiri yani boqolkiiba 90 saasaa la jecel yahay walaalaha insha allahu tacaala markaa waa weydiin doonaa inagoo dardaaramo kalena ku dari doonaa waxaan rabaa insha allahu tacaala markaa inaan wax yar idiin tilmaamo runtii tafsiirka qur-aanka ah muhiimad weyn buu leeyahay waynu soo aragnay dhalinyarada inta badan dadkeenu waad ogtihiin oo sabir male imaamu shaafici markuu ka warramayey cilmiga waxa uu lahaa isbir calaa murri ljafa min mucallimi faina rusuuba alcilmi fi nafaraatihi waman lam yaduq mura tacallumi saacatan tajaraca dulla aljahli tuula xayaatihi يعني قفكو علميا ما غاريو عبادنا ما غدانيو حتى هول كستو ادونيو او دوري انو هدف كغارو ما غاري كارو الا بالصبر انو قفك صبر ليهي مويان انو ضل ليهي مويان التحمل انو قفكو نفتي سو صاحره وحليه امام الشافعي يعني واحد كد القهلطه معلنك ككرانتيسا معلنك هي قلف سنانتيسا هي عنانتيسا هي وحوي معلنك امتحان كيسا كد الغابة معايا لي يعني وحويان هدي آذان سيدا يرين دي علمي قوات كتاقيسا وعلمي قوات لغتاقانا دي وحي كينيسا مركا يابد عضو ومركا يتصبح ويدو قفكي آن علمي برشد علمي آن نفتي سود اللين oo saacad naftiisa aan markaa xabisin inta uu nool yahay wuxuu wax ka cabaa koobka jahliga ayuu wax ku cabaa haddii aadan cilmiga kan iyo barashadiisa naftaada aadan ku xabisin oo aad mar walba naftaada iyo makhaayado iyo halkan iska fadhi iyo sidan iska warwareeg nafta ha dhibin haddaad ku jirto weligaa iyo allaha
دين تالا وحاد كغسقنا نيسا يعني وحوى مرتبات كهانيسا ولقى مرتبات كجريسا قفك مسلم كواحد ربا كتاب كيسا إلهي وسود الجي إلهي تبارك وتعالى وكما نيستي إنو قعميسا كقدرقو صلوح يوان بيا قعمها قال قدرقا إنو قفكي وبرتو وحويان وعورنجرين يعني وحويان لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر يعني ما قال يسيد شرف مقع ماموس إلى دعرت لفته دعرت قرار إلى لفته يعني وعلمي الصبر كعلمي أولي هاي علمي أنا أتكيسي بوباعية هدينا صبرين ما قارينو هدينا صبرين ما برانينو هدينا صبرين ما أتكيسن كرينو هدينا صبرين عشركم سوعينينو هدينا صبر لهين عشرك وحيره بصير إنه كدورينا ولا نكيل نسوي شهني حقا إنه مخايد فريسنة هول يربان لنا هاي ما علمت أنا واحد وقاته عاد بعضين طالب علم نقطه وعاد 10 برطه بقول يا كنتن الرمو أيها خصوصا بحسنية شيطان باوضة هل كان قال تنسيد ييل هل كان عرورتي هل كان إسلامتي هل كان كورسا تاجن هل كان واحد ويا هول يربط كل هذاي هل كان ويال بقى يقصوا بيا هل كان لا بقول داقول بخصوصا فرمية إن القرآن هذا ورجل ما قادت الواسعات تفسير قوس عندنا وهل ساعة داس إن النفط على حكم يسكت إن شاء الله تعالى وعرب هذا اللي يرضى هرت السيدة عرنان وآخرينه واسد دقدقة هذين وعرنا هل ما آخرينه إن شاء الله تعالى وعرنا قرآنك كتابك تفسيرك وحنودد دون أفر هبين كسبت ذا أحد 2 3 هل حزب أما جسبركي أيون نغني إن شاء الله تعالى لبدي أسبوع جسب بعد ماني إن شاء الله تعالى بشينا لبدي جسب بعد مان دور بإذن الله تبارك وتعالى سيدا هدين لقوة ذنا قرآن كإله سديد بلود إن شاء الله تعالى إلو كنا ماذا رجينينا بإذن الله تبارك وتعالى وحويان وحان اسكو داي دونا تفاسير تمرك الآخرية انت بدن 3 قيبات بالله آخرية تفسير وحال الإرادة التفسير التوجيهي تفسير التوجيهي وحويان وتفسير هدف كاللغاية هي يوجد سؤال تاي إن ضدك ونسع عامة ليس يوعي قليو وآياداس ما أنت أولا لغا ورمو وحيابها واقعة المركة وحويها وربدا لسوق قليو لغا يابي هلا بين إن هلا آياد لقاته أما وحوي صفحة النسكة إذا لقاته بكبركي لقاته تاوحى لهذا التفسير التوجيهي وانا جرى قابكاس كتب حتى الله قرأ وتفاسيره ونوع سوي جرى قابك اللبات وتفسير اسوق جرى التوجيهي والتعليمي dadka caam ahaan waa loo tawjiihinaya oo waa loo waaninaya waxba loo gaarsiinaya tacliimina kama madna inta badan waxa lagu qiyaasaa bog ama bog iyo wax yar inuu noqdo tafsiiru tacliimigu waxyaabaha uu leeyahay waxa kamid ah in aan aayadda inta badan laga bixin ilaa waxay keensanayso aan ka maarmayn mooyaan aayadda iyo macisasaarkeeda iyo waxyaabaha aayaddaasi markaa wax tacalluq la leh in inta la soo koobo ka bacdina ardayga xooga loo saaro inuu aayadda ama suuradda intaas wax way tacliim ahaan u barto oo hada uu noqdo qofkii aayaddii qof isa saari kara oo macnaheeda yaqaan sabab nusuulkeeda yaqaana waxyaabaha ku tacalluqana fahmi kara way tafsiirkaas inta badan dadku kama caajisaan waxyaabaha uu leeyahay waxaa ka mid ah waa tafsiir waqti leh oo qofkan wuxuu ku xisaabtamayaa waqti go-an oo uu casharkaas ku meel gaadhsiiyo
maadaama mashaaqishu iska badan yihiin maadaama himmadii ay dhimatay oo dadka cilmiga raacanaya dee markii hore sanawaad ayaa la fadhihi jiray salafkii ridwaanullaahi calayhim waxaad arkaysaa markaad kutubtooda raacato nin odhanaya tafsiirka qur-aanka waxaan baranayay 60 sano 60 sanaan baranayay ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa nin odhanaya suuratulbaqara 10 sanaan baranay 10 sano ayaan baranay yani saynu wuxu barano say wuxu bartaan baa kala duwanaa daday diintu ka dhab tahay oo iimaan leh oo waqtigoodu barakaysan yahay oo waxa weeyaan macnaha u dhaadhacaya isla markaana ficil u bedelaya oo ku camal falaya oo aayadaha qur-aanku ay celinayaan oo qur-aanka la nool bay ahaayeen sidaa daraaddeed waxaa la yidhaahdaa markii caaisha radiallahu tacaala canha la yidhi kayfa khuluquhu sala allahu calayh wasalam nebiga bal dhaqankiisi iyo dabeecaddiisii nooga waran nebigu sidee buu ahaa baa la yidhi markaase waxay tihi kaanat khuluquhu lqur'aan nebiga akhlaaqdiisu qur-aankun bay ahayd qur-aankun bay ahayd wuxuu ahaa nebigu sala allah alay slam qur-aan dhulka soconaya ayuu ahaa dhan walboo laga eego aayadda qur-aanka kariimka saxaabadu waxay leeyihiin waxaanu ahay kuwo barta oo qaato 10 aayadood 10ka aayadood markaanu baranno 10ka aayadood markaanu qaadano ma aanaan gudbi jirin oo 10 kale ma aanaan doonan jirin ilaa aanu 10kaa sugno oo aanu fahamno lafdigooda aayadaha sida loogu dhawaaqayo sida loo akhriyo xifdi ahaan ilaa aanu xifdino oo tafsiirkooda baranno oo aanu ku dhaqanno oo ku camal fallo markaasaanu 10 kale baadi dooni jiray dadkaasi sidaasay wax u baran jireen laakiin innagu waa ka dadkan haddana jooga waqtigan waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo tafsiirka inta badan habeenka la bilaabayo iyo waqtiga tafsiir bayaan odhanaya 10 kastoo la bilaabayo waxaa iska dhaqan noqotay oo meel walba markaa ummadda aad moodo runtii inay atawaasaw bihi laysuba dardaarmay maalmaha kitaabku cusub yahay dadku waa camirayaan oo waa fadhiisanayaan oo dadku moral bay hayaan oo dadku waxa weeye waa jecel yihiin laakiin tareenka nimbe meel buu kaga degayaa waa baskaa yar ee kismaayo dhex maraya ee markaa waxa weeyaan ilaa iyo dalxiiska tegaya iyo siinaay qofba meel buu kaga degayaa qofba meel buu kaga degayaa qofka u dambeeyaa laga yaabaa baskaasi inuu 2 qof ama 3 qof geeyo marka uu meelaha marayana waa buuxa waa dareemi karaysaan tusaalaha yani inuu noqdo 10 xiisa ku dhisan hadday waxaagu xiisa yihiin sababta xiisa waa xumbo iyo xiisaba waa demaan hadday waxaagu sida kookaha ama faantada marka la ruuxo ay markaa u yeelato markaa sooraha u yeelato waxa weeyaan marka la daayada ay u degto waxaagu hadday soora noqdaan macno male waxaanu u baahannahay sida ilaahay tilmaamay fa ama zabadu fayadhabu jufaan wa ama maa yanfacu nnaasa fayamkudu fi lard waxaagu way noqdaan wax kuu xasila oo aad marka ilaahay weydiisato tabaaraka wa tacaala inuu ku fahamsiiyo insha allahu tacaala markaa waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo inaynu tafsiirka ka dhigno maqre oo aynu xoogga saarno insha allahu tacaala sidii ardaydu ay tafsiirkan u dhammayn lahaayeen una baran lahaayeen waxaan ka codsanayaa markaa qodobka koowaad in la helo 10 ku ceshasho in 10kii lasoo muraajaceeyo oo 10kii markaa xalaqaad uu samaysmo oo 10ka marka laga baxo aan la yaacin 5 ama 10 ama 20 intii la isheli karo in kitaabka la isugu celiyo oo qofkii hebel ku celi adna ku celi adna ku celi adna ku celi adna ku celi oo ilaa iyo 10 goor oo 10ka marka lagu akhriyay ka dambeeya aad dhegaysato xaqiiqo waxaa markaa 10kaasi wuxuu ku noqon doonaa 10 aadan cid dambe u daba fadhiisan oo adigu ummadda gaarsiisa ayuu noqon doonaa haddii kalese weligaaba waxaad taagnaanaysaa jugjug meeshaada joog jugjug meeshaada joog barti yaqaan bari uma korodho soomaalidu mahmaah badan bay waxa weeyaan ay ka leeyihiin barti yaqaan ha noqonin isku day inaad wax beddesho
oo wax badan aad wax ka bedesho waxaan insha allahu tacaala markaa leeyahay waa fudud yahay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa ilaahay idankii inay midho wanaagsan nooga soo baxaan oo maalinta kitaabkaasi uu dhammaado aynu helno ummad badan oo arday ah oo kitaabkii dhammaysatay insha allahu tacaala oo kitaabkii xambaartay waxaan runtii jecelahay markaynu jus dhammaynaba inkastoo ay dadkeenu aanay jeclayn laakiin markii jus la dhammeeyaba in wax layska weydiiyo laysku imtixaamo way wanaagsan tahay laakiin waxaan ogahay dadku xaal mastuur baa layskaga jiraayo aad uma jecla su-aalaha waxaa laga yaabaa mid badan oo xataa casharka dhagaysan lahaa marka la yidhahdo waxaa ka jawaab inuu carraa laga yaaba marka waxaa leeyahay aduu naftaada imtixaan insha allahu tacaala oo dhexdiina is imtixaama oo waxa weeyaan laakiin waxaa jiri doona insha allahu tacaala ardayda qaybaha ka midka ah ee macadka gaar ahaan dhigta ee sheekh muuse insha allahu tacaala sheekh maxamuud iyo ay odayaasha u yihiin insha allahu tacaala iyaga waa arday oo iyaga si gaara loo imtixaami doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala saas arday dalabatul cilmigana waa la mid insha allahu tacaala biidn illahi tabaaraka wa tacaala marka waqtigan inaan ilaashanaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo caawa muqadimadaa yaree kooban ee aan inta badan xataa iska dhaafnay waxyaabo badan inaan dadka wax weeye gelino xoogaa yaroo kooban oo muujisul akhbaar warka madaxdiisii ayaynu isa siinay insha allahu tacaala warkii oo faahfaahsana kitaabkaynu ugu tegi doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala inaan kor ka soo bilowno oo aynu habeenkiiba maqre aynu meel saarno laakiin waxaad moodaa runtii xagga hoose oo runtii tafsiirkuna dhinacuu adag yahay ah oo qur-aanka marka awal iyo aakhir laga warramayo tafsiirka awalka ayaa xagga qiraa'ada iyo xagga tafsiirka ee macnahaba adag marka waxaad moodaa inaynu insha allahu tacaala aynu qaadano inaynu qaybtaa hoose insha allahu tacaala aynu ka bilowno marka waxaynu noqonaysaa qaabkaynu akhriyaynaa jus walba madaxiisaynu ka soo bilaabaynaa oo camaan ka bilaabaynaa suurat nnaas baan geenaynaa insha allahu tacaala haddana tabaarak baan ka bilaabaynaa waxaynu geenaynaa waxa weye walmursalaat ayaynu geenaynaa qadsac baynu ka soo bilaabaynaa waxaynu geenaynaa suurat taxriim jusasku markaa sidaas ayay isu raacraaci doonaan insha allahu tacaala waxaan jecelahay ilaahay idankii culimada in ay dardaaran iyo laba ku daraan wixii insha allahu tacaala weliba adeer baan rabaa adeer axmed inuu soo kaco insha allahu tacaala waa habeenkii ugu horreeyey inaynu dardaaran samayno waa lagama maarmaan sheekh calina insha allahu tacaala isna waa rabaa inuu soo kaco insha allahu tacaala qof iyo labo inaynu dardaaran dhalinyarada siino waa lagama maarmaan wajazakum allahu khayran wasala allahuma calaa nabiyina muxamed habeen dambe ayaynu insha allahu tacaalana aynu bilaabi doonaa cama biidn illahi tabaaraka wa tacaala alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciin cala almudiya wasala allah wasala ala nabiyina maxamed xoogaa waa baqayaayo waxaan ka baqayaa hadde maadaamo aanan xagdiideed annagu baadiyaha iska nahayo xooladay baan nahay laakiin ilaahay caqliguuna siiyo waa garan karnaa waxaan noo bilaabanaya waa tafsiir weeye siduu noo sheegay sheekh saciid khayr allaha siiyo iyo intii ka soo shaqaysay oo masaajidka iyo ragga joogayba waxaa la rabaa marka haddii ilaahay idmaayo haddii ilaahay idmo waxaan rabnaa marka waxa horta waxbarashada laga rabo oo la rabo inay berri waddanka iyo dalka iyo dadka anfacaan waa dhallinyarada annagu qorro casar joogtaan nahay oo waa tagnay wixii naga baytumaale iyo wixii naga tegayba wakhtiganaga waa dhammaaday dadka aan la dardaarmayno oo aan rabna inay muxuu ahayo diinta qabsadaan oo badda iska daayaan oo cayaarta iska daayaan oo meesha ay leeyihiin muxuu aha intay fadhiisaan habeenkii ay leeyihiin banooniga ay ka sheekeeyaan niman gaal iyo balaayo ay ka sheekeeyaan dadka aan rabna inay waxbartaan waa dadka dhallinyarada ah weeye nimanka gaalada ah dadka dabeecaddooda wata waa jaahil wey dad jaahila weeye ninka jaahilka ah waa ninka aan diinta lahayn wax faa'iido uu leeyahay ma leh dhaqankiisa ninkii raacana dulinimo iyo wuxuu dhexlayaa waxaan aan muxuu aha munaasib ahayn buu dhexlayaa
adduunkana waxba kama dheefaayo aakhirana waxba kama dheefaayo waxaan ku baraarujinaynaa haddii ilaahay idmo ragga dhallinyarada ah in ay qaataan diinta inay bartaan inay iska daayaan banooniga inay iska daayaan muxuu ahaayo ee cayaaraha ay leeyihiin hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ay leeyihiin inay iska daayaan diinta ay bartaan diinta ay muxuu ahaayo ay qabtaan nimanka laga rabo inay qabtaan nimankaa weeye haddii ilaahay idmo marka waxaan ku soo dhawaynayaa oo aan leeyahay abshirta allah ina waafajiyo diinta allah ina waafajiyo shiikhana iyo wixii soo qalqaanay ilaahay ha karaameeyo makaalkoodana janna firdowsa allah ka dhigo annagana adduunka iyo fildhaba allah noo naxariisto haddii intaasaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان وقضيتم الساعات في آياته ترتيلكم نبض بكل مكان همم تفاخر أمتي بسموها وعلوها عن لوثة الأدران لا نوم يغريكم ولا لهو ولا لعب مع الأنداد والأقران بل كان يجذبكم كتاب محكم ترجون ختما قبل فوت أواني يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان.